kulan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka kooban ee telefishinka Goobjoog halka aan kaga akhrinay anigoo ah Maxamed Umar Cabdinuur Dhaqane qodobadan maanta idinku haynana waxaa ka mid ah shirweynaha looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ayaa maalinta biri ah ka furmi doona magaalada London shirkan ayaa looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bini'aadanimada waxaana ka qayb galaya wafuud caalami ah iyo kuwa kale ee gobolka madaxda qaar ka mid ah ururada Afrika mas'uuliyiinta ugu sarreeya dawladda federaalka madaxda dawlad goboleedyada iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa sidoo kale ka qayb galaya shirkan shirar hor u dhacaya shirkan biri ah furmi doona ayaa maanta lagu wadaa in ay dhacaan waxaana looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin sida qurbo joogta ay uga qayb qaadanayaan dhismaha dalka dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha kale maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay in dawladda Kenya ay kala hadlayaan inay qaadato mas'uuliyadda duqeymaha dadka rayidka ah lagu saameynayo ee ka dhacay gobolkaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi oo la hadlay Goobjoog ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo howlgalka ammaanka gobolka lagu sugayo waxa uu sheegay in xaaladda ay sidii hore ka wanaagsan tahay amni ahaan gobolka Gedo marka la eego waqtiyadii hore oo la soo dhaafay gudoomiye xigeenka oo sidoo kale hadal qaaday duqeymaha diyaaradeed oo Kenya ay ka geystay Gedo ayaa sheegay in dawladda Kenya ay qaadanayso mas'uuliyadda dadkii rayidka ahaa ee ku dhintay duqeymahaasi waa diyaaradaha dagaalku ay ka geysteen gobolkaasi Gedo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay ka geysanayaan ciidamada maanta oo Arbaca wadaan waa inay wadaan deegaanada ka mid ah gobolka Gedo howlgallo lagu baarayo wixii ka dhacay dagaaladii ka dhacay shalay wararku waxay sheegayeen ciidamada badan oo ka baxay magaalada Baydhabo ay gaareen deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaaladaasi halka oo maalintii shalay ahayd lagu dagaalamay xaaladda guud ee deegaanka gobolka Goofgaduud ayaa degan walow aad saameeyeen dagaalkii xoogana ee shalay ka dhacay deegaankaasi inta badan waxaa halkaas isaga barakacay dadkii shacabka ah ee deeganaa waxaana ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab halkaasi ku dagaalameen in ka badan 6 saacadood saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Baay wali wax faahfaahin kama aanay bixin dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Goofgaduud in ka badan 10 qof oo dhinacyada dagaalamay ahaa ayaa dagaalkii shalay ku dhintay iyadoo 20 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi 10 ruux ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday deegaanka Gelinsoor ee gobolka Mudug sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi galad Cabdulle Cumar oo kamid ah saraakiisha caafimaadka ee deegaanka ayaa u sheegay Goobjoog in dadkaasi ay geeriyoodeen labadii toddobaad ee ugu dambeysay waxa uu tilmaamay galad in hadda isbitaalka Gelinsoor ay jiifaan dad ka badan 10 kuwaas oo soo ritay cudurka shuban biyoodka deegaano badan oo dalka kamid ah waxa sidoo kale ka jira cudurkan shuban biyoodka oo ay geeriyoodeen dad badan kuwa kalena ay wali la ildaran yihiin waxaana dadka xanuunsan ay u badan yihiin gurmad caafimaad ama u baahan yihiin gurmad caafimaad haddana aynu dhankaasi dibadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay inuu Mareykanka hubiyo kooxda Kurdiyiinta si ay ula dagaalamaan ururka Daesh waa sida ay sheegeen wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Kurdiyiinta ay Mareykanka u habeyn doonaan iyagoo la siinayo hubka noocyadiisa kala duwan talaabadan oo ku hubeynayo Mareykanka Kurdiyiinta ayaa waxa ay ka careysiisay dawladda Turkiga oo iyadu Kurdiyiinta u aqoonsan inay yihiin argagixiso dawladda Turkiga ayaa doonaysa in aysan Kurdiyiinta qabsan dhul badan oo ka tirsan Suuriya balse Mareykanka ayaa sheegay inuu og yahay in arrintaani ay ka careysiinayso dawlado badan oo ay ka mid tahay Turkiga daawadayaal waxaa halkaa ku eeg warkii koobnaa oo aad ka daawanayseen telefishinka Goobjoog oo aan idin akhrinay anigoo ah Dhaqane tan intaan ku kulmi doono wararka iyaga xiga waxaan kaga tagay sida iyo nabaday